runtii ilaabi maayo sheekadan waxay nagu dhacday aniga iyo gabar aan saaxiibo ahayn. waxaan soo aadnay meel dalxiis ah. maalinkii oo dhan waan soconaynay oo waxaan raadinayay meel aan ku dalxiisno oo meel doog ah oo jawi degan. gabadha saaxiibaday ayaa mar sikadiis waxay ku aragtay wax dheer ah. ayada ayaa ii sheegtay, anigana waan aamini waayey. intaan cabaar fiiriyey waan arki waayey oo waxay igu tiri waa wax dheer. waxaan ku dhahay geedaha qaar waxay u egyihiin wax laga cabsado, aniga ayaa kula socda, waxba ha baqin. inta aan yar cabaar ku qoslay ayaan waxaan ku dhahay waxba ha baqin, aniga ayaa kula socda. kadibna way aqbashay. waxaa la gaaray xilli haween ah. teendhadiina ayaan taaganay, waxaan shidanay dab oo qaaci ah. kadibna cunto ayaan karsanay. durbadiiba waa madaalanayn. ayadana waa ay seexatay, anigana waan seexday. habeenkii cabaar marka ay jiiftay ayay waxay maqashay cod dheer ah. kadibna aad baan u naxnay, anigana waan maqlayay. ilaah waxaan ka baryayay in ay wax dhib aysan noqon, ay noqdaan xayawaano iska caadi ah. anagoo idil waan cabsanaynay. habeennimadkii waxaan isku dayay in aan meesha ka bixi karno iyo in kale, laakiin ma aanan bixi karin. waxaan sikadiis u furnay meel yaroo daaqad ahayd, laakiin waxaan dareemaynay wax dheer inay socdaan. cabaar ayaan fiirinaynay, geedaha ayuu kasoo dhexdhexbaxayay. waxaan yareynay shanqartii. kadibna lugta ayaa sikadiis laga qabsaday. aad baan u naxay. aniga ma ayn ahayn qofka lugta laga qabsaday ee gabadha ayay ahayd. ilaabi maayo sheekadan. habeenkii idil waa naxsanaa oo toosh ayaan soo baxsaday. waxayna waa arki waayey oo nolol ayaan ku raadinayay. marka hore teendhada ayaan ku jiray, laakiin gadaal waan ka soo baxay teendhada. waxaan isku dayay in aan geedaha ka raaraadiyo. wax dhan waan arki waayey. qaylin waan maqli waayey, shanqar xitaa waan maqli waayey. aniga waxaan isku dayay in aan helo geesi ayaan iska dhigay, laakiin wax walba waxay ahaayeen wax kadiis oo qoran. wax dheer ayay ahaayeen oo indha mikrafoon xitaa leh. kadibna way igu soo carareen. aniga oo dhan waan isfahmi waayey oo gacan ayaa ligu qabtay. miir ma aanan yeelin oo waa qayliyey. ilaah waxaan ka baryayay inuu iga badbaadiyo. wuxuu ahaa wax dheer oo leh feero waaweyn, kadibna ilka ayuu lahaa, toosh camal lagu ekaa. habeenkaasoo idil sidaas ayay nagu dhammaadeen. kadibna gabadhi sidii ayaa lagu soo celiyey. annaga iyo gabadha hadduu si wada jirna u cuni lahaa maxaa nagu dhici lahaa?